safiirka Sacuudiga soo magacaabay Soomaaliya oo lagu qaabilay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay doorashada gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka. suxufi caan ah oo isku soo taagay kursigii la sheegay in la siiyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. qodobadaasi waxay ahaayeen saaxiibayaal qodobada ugu doorka roonaa warkeena duhur. qodobadaasi oo faahfaahsan ku soo dhawaada. markaan aan eegno wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Cabdisaciid Muuse Cali ayaa maanta nuqul ka mid ah waraaqaha aqoonsiga dajirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada Sacuudiga soo magacaabay Soomaaliya Mudane Axmed bin Mohamed. dajiraha cusub ee dawladda Sacuudiga Axmed bin Mohamed ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya la wadaagay dadaalka uu ku bixin doono adkeynta xiriirka diblomaasiyadeed iyo wada qabsiga ka dhaxeeya labada dawladood iyo labada shacab ee saaxiibada ah, isaga oo ka mahad celiya soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay. wasiirka iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay sidii ay Soomaaliya iyo Sacuudiga u xoojin lahaayeen xiriirkooda soo jireenka iyo iskaashiga labaad ee labada dawladood ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, ganacsiga, arrimaha bulshada iyo siyaasadda. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa danjiraha cusub ee boqortooyada Sacuudiga ugu hambaliyay xilka loo magacaabay. waxa uuna sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagayso gudashada waajibka diblomaasiyadeed ee loo igmaday. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa haatan ka socda diyaargarow xooggan oo ku aadan doorashada gudoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka kadib markii la eriyay gudoomiyihii hore. gudoomiye ku-xigeenka guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka Maxamed Ibraahim Barre oo warqad soo saaray ayaa magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada ee guddoonka. guddigan oo ka kooban 5 xubnood ayaa ka shaqayn doona diyaarinta doorashada gudoomiyaha cusub ee muhiim ku ah doorashada socota ee golaha shacabka. sidoo kale Maxamed Ibraahim Barre ayaa faray xubnaha u magacaabay inay daacad noqdaan isla markaana ay gutaan waajibaadka shaqo ee loo igmaday. waxaan farayaa xubnaha in ay waajibaadkooda gutaan si daacad ah, ayuu yiri gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka. xilka gudoomiyaha ayaa waxaa loogu jiraa loolan adag, waxaana haatan u tartamaya qabashadiisa xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. sidoo kale waxaa isku garbinaya inay guddoonka guddiga helaan dhinacyada kale ah, gaar ahaan filla Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo maamul goboleedyada sida ay hore u dhacday kal hore, gaar ahaan doorashadii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban. guddigaas ayaa waxa uu soo baxay Muuse Geelle Yuusuf oo guddiga ka soo galay Puntland kadib garab istaag uu ka helay Dani iyo xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. suxufiga rugcadaaga ee Xasan Sheekh Axmed Xasan Cabdi ayaa ku soo biiray masraxa tartanka doorashada golaha shacabka, isaga oo isu soo taagay kursiga hoob 138 ee yaalla magaalada Dhuusmareeb ee caasimadda Galmudug. Xasan Cabdi ayaa kursigan kula loolami doona siyaasiyiin uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga wadajir ahna musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. kursiga hoob 138 ayaa waxaa haatan ku fadhiya ganacsada weyn ee Saciid Noor Girish, iyada oo sanadkii 2016 loolankii adkaa ee kursigaas loo galay uu ku baxday lacag dhan $1 milyan. si kastaba Saciid ayaa la sheegay in markaan uusan musharax ahayn. kursigan oo ka mid ah kuraasta ugu saameynta badan dhinaca Galmudug ayaa sanadkan ka duwan sanadihii hore, waayo waxaa jirta culays siyaasadeed oo la doonaya in kursigan aan tartan loo gelin. hore waxaa uu jiray warar sheegay in beesha leh kursiga ay siisay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur uuna qaadanayo tartan la'aan. hase yeeshee loolanka ka imaanaya Xasan Cabdi ayaa wax weyn ka bedeli kara xaaladda kursigan. su'aasha hadda waxay tahay, Cabdiraxmaan Cabdishakuur diyaar ma u yahay tartan? sababtoo ah haddii loogu adkaado waxay saameyn ku yeelan kartaa rajada uu ku qabo kursiga madaxweynaha Soomaaliya. wax walba waxay kala caddaan doonaan maalmaha soo socda marka uu guddiga doorashada Galmudug ku dhawaaqo liiska musharaxiinta kursigan.